kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan waa barnaamijkeeni xog waran oo markasta aan idinka soo qaadano waxyaabaha ka dhaca deegaanada reer Khaatumo. maanta waxaa marti noogu ah stuudiyaha warbaahinta reer Khaatumo mudane Cabdisalaan Maxamed Faarax oo ku magac dheer Cabdisalaan Haydeen. Cabdisalaan waxaad ku soo dhawaataa stuudiyaha warbaahinta Khaatumo ee bariga Sacuudi Arabiya. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آدي آد بان إذنكم هاد علينا warbaahinta Khaatumo State of Somalia xalaasha markasta oo ay usoo tabiyaan adduunka ama caalamka ama dhamaanba bariga wadanka Sacuudi Arabiya dhamaanba sida maaragtay wanaagsan sharafta iyo qiimaha dheer ay ugu soo tabiyaan taas aad baan u soo dhaweynayaa waana salaamaya sanadkan cusub ee 2014 taasna oo ay tahay bishii January in uu sanad cusub la galay kana rajeynayo barwaaqo bashbash wanaaga in lagu gaaro taasna waan soo dhaweynayaa waxaan kala soo dhaweynayaa oo aan kula dardaarmayaa maadaama aad tihiin Royal TV in aad markastaba hawlaha wanaagsan aad hadda wadaan aad Khaatumo State hawlaheedana si fiican ugu soo dartaan si wacan aad u soo tabantaabisaan haddii Ilaahay idmo. Cabdisalaan aad baan kaaga mahadcelinaa safarka dheer aad nooga soo martay ilaa Jidda Riyaad ilaa bariga Sacuudi Arabiya aad baan horta kaaga mahadcelinaa manaha markii koobaad aanu kulan sidan oo kala aanu kula yeelano daawadayaal horta markasta waxaan ugu talagalnaa barnaamijkeenan xog waran iyo dhibaatooyinka ama wixii horumar ah ay ka jira deegaanada reer Khaatumo markasta ama daawada kasta isagoo isku daya inuu isagu soo daayo ama soo gudbiyo waxyaabaha barnaamijyada ugu heerka sareeya ama baraarujin ha noqoto ama wacyigelin ba ha noqoto Cabdisalaan Haydeen oo isagu soo maray afayeenkii hore ee maamulkii hore ee SSC iminkana aanu la kaftan xilhaye ama xil suge reer Khaatumo. Cabdisalaan marlabaad baan kaaga mahadcelinaa. Cabdisalaan maamulka Khaatumo وسند وحوش السدي صدح جرا ما ومركي حفلتي سي صدح هذا ما وسند جولدي سي صدح هذا وحن ملاينا يا إن أديك لفتك وإن أذكر هاي سيد إن حفلتها يقبل قابوين كتشرا أدون كوردن عندي بقصة نقول حفلتها سي خاتمه حلالكي صدح من الحويني هي وارد مالين من الحويني الأشياء البحية maxaa dorta tala guud ama warbaahin guud naga sii karto reer Khaatumo maamul iyo shacbiyanba. بسم الله الرحمن الرحيم aad baan horta idinku mahadcelinayaa qoladiina ciidanka haddaan marlabaad ku celiyo aad arrinta aad weydiiso haddaan ka jawaabo Khaatumo State of Somalia waxa ay tahay oo maanta ku jirto waxaan u malaynayaa wax badan baa isbedelka haddii aad iga weydiiso aan hore ugu soo tallaabsado saddexdii madaxweyne ee lagu doortay bardihii Taleex laga qayb galay kunka qof ee ugu sugu jira salaadiin aqoon-yahan iyo shacabka iyo lafdhabarta gabdhaha Khaatumo ay halkaa lagu galay ee lagu doortay saddex nin oo madaxweyneyaal ah oo ninba muddo 6 bilood oo gacanta ku hayay waxa weeye waxa hadda ka jooga oo goobtii wali jooga in la yaaho Maxamed Yuusuf Indhasheel Maxamed Yuusuf Indhasheel wixii loo idmaday ilaa hadda waa gacanta ku hayaa waxaanu leenahay marka geerida dishaageed ka habo Indhasheel waxaa la yifindhicil ku baa la maxaraan baa soo xalaal xuskiisa wanaagsan in la xuso ma wanaagsana shakhsiga isaga halkaasaan ka ku dhaafaya ninka kalena anigu hadda warba kama ayo meesha uu ku nool yahay iyo sida uu yahay hadaan u gudbo arrimaha Khaatumo xafladeedii saddexaad baan malaynayaa hadda in January waqtigeeda 15keeda in la gelayo caalamkana waad ogtahay inay ka dhacayso ummaduna waxaad moodaa in
dhibaatadii iyo hooggii anigoo aada iyo aada uga xun duulimaadkii lagu qaaday taleex aan mar labaad uga tacsiyadeynayo horena aan u tacsiyadeeyey waktiga arrintaasi dhacday aan qirayo shacabka reer taleex inay u dhinteen shacabka dhibaatada gaadhay inay ka liftay shacabka khaatumo waxa la ilaawi karaan ayan ahayn arrintaas oo aan ku celinayo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba shacabka khaatumo state of Somalia inay isha ku hayaan in ay agoontii iyo dhaawicii iyo dhibaatadii iyo duulimaadkii ahaa loo adeegsaday 62 macadaadka ah in arrintaas aan marnaba la ilaawin dhulbahantana ay u dhinteen arrintaas taasaan marka waxaan uga gudbaya haddii ilaahay idmo waxaan leeyahay khaatumo waa soconaysaa shirkii khaatumona taleex buu ka dhacayaa hawluhuna sidii hore wax badan baa iska bedelay aad baad umahadsan tahay cabdisalaan aanu usoo noqono dhacdadii taleex oo ugu dambeysay waxaa la yidhi mayd maxaa u dambeeyeysaa lakaada sii sido 3 madaxweyne ee khaatumo soo maray ninba waqtigiisa waa dhamaystay dhacdadii taleex ka dhacday reer khaatumo iyo caalamka oo dhanba gaar ahaanba soomaaliba siyaabo kala duwan bay uga hadleen dhacdadii ka dhacday taleex cabdisalaan ahaan yaad ku eedeynaysaa ama oranaysaa ciddaasi ka dambeysay wuxuu yidhi waxaa lagu mahmaada soomaalidu doo iyo dareenlaa waa dadka ugu ayaan daran taleex wixii ka dhacay waa wax macruufa taleex wixii ka dhacay ee shacabka taleex ee khaatumo ay gogosha u dhigeen in shirkii saddexaad uu ka dhaco taleex dhibaatadaa waxaa u guntaday oo geystay adeegayaal lagu adeegtay ya iyo maamulka Puntland ee uu hogaamiyo cabdiraxmaan faroole arrintaa isagaa ka dambeeyey isagaa usoo diray 62 ciidan macadaada isagaa ku gumaaday maato barakiciyey laayay ma garatay kuwa aad sheegaysay aad leedahay iminka aan hadda aanan jeclayn inaan xusana waxa weeye waxay ahayn adeegayaal faroole uu ku shaqaysto yaanu arkay anigu marka waxaad leedahay adaan cidba cayimin waxaad leedahay waa faroole iyo cid ku adeegtay faroole iyo cid ku agtay haddii aan kasoo gudbo waxa weeye faroole nin ku xigo oo lagu yidhi caylad aan hadda anigu u arko caylad wanaagsan oo layaaho cali shire wuxuu ahaa nin dhaqan leh oo wanaagsan laakiin nin laygu yidhi waxaa la cabdi nin la yidhaaho magaciisa aanan aada u jeclay inaan maaragtay waayo qofka haddaad xasaas ka tahay cabdisamir cali shire lagu magacaabo soomaalidu waxay nin horaase wuxuu sheegay mahmaah gabay ah ayuu tiri wuxuu yidhi taa haddaan ka gudbo oo aan ma jeclay inaan maaragtay waxa weeye marka dhinac cali shire iyo ninka la axmed karaash oo dhibaato ka sameeyey taleex oo shacab iyo maato iyo mataqaanaa sidii rag hore aqoon-yahan waa u sheegay geedkii bardaha ahaayee khaatumo la baxay ee khaatumo shirkaas ka dhacay dumiyey oo guryihii dumiyey oo caaqilka gurigiisii dumiyey anigu marka waxaan u haystaa faroole iyo wixii ku adeegtay haddaan taa kasii gudbo waxa weeye salaadiintii kasoo jeeday qabiilka faroole iyaduna waa kusii digteen oo waxay yidhaaheen annagu waxaanu u haysanaa arrintaa reer taleex iyo reer khaatumo inay islaayeen waa mid aan iyaduna la ilaawi karin oo aada iyo aad aan runtii shacabka khaatumo iyo ummadda islaamka iyo ummadda dhaqan lihiba ay arrintaa ay ka xun yihiin cabdisalaan aynu usoo noqon arrimaha Puntland iyo Soomaalida kalaba waxaan ku guda jirnaa arrimaha khaatumo garaadadii khaatumo shirkan dib hadda u qabsoomaya ee laleeyahay dib u qabsoomaya garaadadii iyaga maxaad say warka haysaa garaadadii khaatumo state ahaa waa waxa weeye hawlay ku jiraan hawlo
kii loo idmaday baa qayb weliba ku jirtaa. waadna og tahay oo iminka inay qaarkood Ethiopia joogaan oo u joogaan hawlo qaarna kaga qayb galay shirkii jaaliyadaha ee jigjiga qomiyadaha ah Ethiopia. sidaa darteed marka waxa weeyaan hawlihii loo idmaday bay ku jiraan waana socdaan. waxaanse kuu sheegaya haddii aan usoo noqdo arrimaha Puntland. cabsalaan dib baynu ugu noqonayna arrimaha Puntland. waxaa jirta hadda madaxweyne Axmed Karaash in dib ugu soo noqono Binde indhasheel nin weliba xil buu soo maray. Axmed Karaash wuxuu ka digay Puntland. Bindase xal waxaanu daawanay afhayeenka reer Khaatumo ee isagu Salebaan Wajaxaad oo isagu ku hadlayay afka maamulka iyo afka ismadaba. wuxuu sheegay in labada madaxweyne ay xilkii kala noqdeen ismadu. Axmed Karaash waxa yiri Puntland buu ka digay oo weynu daawanay weynu aragnay. Bindana weynu dadku hadalaya arrinta Salebaan Wajaxaad uu ku hadlay uu yiri afka maamulka iyo afka reer garaadadaba waan ku hadlayaa. arrintaadu si aragtaa? arrintaas waa arrin muqaddasa weeye. arrintaas waa arrin muqaddasa sida uu u yidhina waa sax. Salebaan Xaaji Maxamed Wajaxaad waa afhayeenka Khaatumo state westernka Europe, Maraykan iyo adduunka oo dhanba oo caalamiyana. marka sidaa darteed waxa weeye waa wax maaragtay geedka go-ana. waa wuxuu keligii abaystama. waa wax ummadda Khaatuma gabadh iyo wiil iyo nin iyo aqoon-yahan iyo salaadiin iyo soo jireen waa waxay ka midaysan yihiin. waana wax aan maaragtay loo noqonayn. waan gartay cabdisalaan. waxaa jirta su-aalan qof kasta oo siyaasiya ama garaad ahba ama macquul ah oo reer Khaatumo la weydiiyo. adiga laftigaaga waan ku weydiinaynaa. su-aashana waxay tahay shirkii Taleex ee qabsoomi lahaa dib baa loo dhigay sababo badan awgood. dadka qaar waxay dhahaan laga bedelo meel kale la geeyo. dad waxay dhahaan maadaama dad u dhinteenba loo daayo. cabsalaan ahaan maxaad adigu oran lahayd shirka mar dambe hadduu dhaco ama qabsoomaba halkee laga dhigaad oran lahayd? aad bay su-aashaad u wanaagsan tahay. waadna ku mahadsantahay. shirkaas Khaatumo ee ahay caasimadda ku-meel gaadhkeed Taleex in laga bedelo positionkeeda oo laga wareejiyo ra'yigayga iyo aqoontaydii aragtidayda marnaba in laga wareejiyo uma baahno. halkeeda inuu ku ekaado halkaa la faguro. waayo waxay noqonaysaa khalalaase kale oo yimaada haddii la yaha la bedelo. aniga markaa ra'yigayga Taleex caasimaddii ku-meel gaadhka ahay ee shacabka Khaatumo u dhinteen arrinta gogol ay dhigeen u dhigteen in laga bedelo aanu raalli kamayay marnana ma soo jeedinayo. daawadayaal waa barnaamijkeena xog waran oon mar kastaba kusoo qaadano dhacdooyinka ka dhaca deegaanada reer Khaatumo. martina waxaa noogu ah cabdisalaan haydeen isagoo siyaasi aqoon-yahan ah. cabdisalaan aynu gudubno qaybteena labaad arrimaha Puntland. waxaa jira Puntland waxaa ka socota doorasho. waxaan maqlaynay ama aynu idaacadaha ka aragnay baarlamaankii waa la xulay. isimada reer Khaatumo waxay yiraahdeen ka mid ma nihin. waxaa u dambeeyay Professor Cali Khaliif oo isagu xalay ka hadlayay oo isagu sheegay inuu meeshaas dad aan marka horeba meesha joogay dib loo magacaabay. 17 nin baa marka hore ee aad maamulka ka mid ka ahaydeen joogay. 17 haddana mar labaad loo yeeray. nimanka 15 saan u maqlay. maxaad adigu 17 ama 15 nin ee halkaa lagu xulay ee Puntland maxaad iyaga ka oran lahayd? aad baad u mahadsan tahay. waxaa weeye waxaan ka oran lahaa anigu ummadda halkaa tagtay ee laleeyahay waa baarlamaan uma arko wax maaragtay in la xuso ma wanaagsan. waayo waxaan u arkaa ummad aan jirin. waxaase igaga xun aniga markaan taa kasii gudbo anaan iyagaba usii leexay.
ummadda aqoon-yahan leh mataqaanaa salaadiin leeyahay soo jireen bay leedahay le mataqaanaa niman doonaya inay mataqaanaa ku soo baxaan kursiga puntland aniga mar haddayan ummaddaasi ayan dhawaaqii salaadiintayda soo jireenka ahi ay mataqaanaa ay ka sheegeen cilaanka oo yidhaahaan nama khusayso ninka ixtiraami waaye oo puntland ku abtirsanay oo doonaya kursi ama doonaya salaadiin ah ama aqoon-yahan sheeganaya anigu arrintaa waxaan u arkaa maanta Khaatume State iyo ummadda reer Garowe halkaa kasoo jeeda inay aad iyo aad u kala fogaadeen maalinaynu kala fogaanin maalinay ka xunta inay jirto sababtu waxa weeye 12 isim baa halkaa istaagay oo yidhi nama khusayso waxaan u xoreynaana ma jirto Soomaaliga nimanka markaa kuwii hore ee mataqaanaa awalba u joogay dee wax haystay waxa weeye anigu kuwaa uma haystay kuwaan sharaf tayda iyo magacayga iyo arrimahayga iyo inay igu xadgudbaan aan u haystaa waa kuwa kursiga doonaya waa kuwa hore usii joogay waa kan aan awalba dee aan wax naga dhaxaynin ku duulay magaaladayda caasimadaydii Soomaalian garan marka waxa weeye taasi waxa weeye annaga noo taala wuxuu yidhi ninkii wax rag loogu maahmaahe ninkii marada shirka ku dhusay wuxuu yidhi aniga dabadaydu way isu taalla marka aniga nimankaas way isu naallaa wax abay yaraatee naga dhaxayn anigu ra'yigayga una malayn maayo intaanu adduunka ku noolahay inaanu dib isugu soo noqonayno waa sida cabdisalaam waxaa jirta nimankan siyaasiyiinta ama murashaxiinta Puntland murashax kasta markuu shacab la hadlayo wuxuu kow ka dhiga ama number 1 ka dhiga reer Khaatume wuxuu qabanayaa ama dhulbaanta wuxuu qabanayaa maxaad taa ka oranaysaa saaxiibow waxaan joogay anigu 2010kii markii lagu abaabulayay SSC meesha la buuro wadan ayaan fadhiyay anigu iyadoo buuro wadan ay fadhiyaan salaadiinta qaarkood qaarna ay laba bugleynayaan oo aan weli la isku dubadhicin ina Faroole 12 madcadaada buu kusoo diray nimankii fadhiyay meesha 12 technical 12 technical buu kusoo diray meesha wiil reer Khaatume oo ku jiray qaybtaadu jiray baa 12kii intuu kasoo hormaray ayuu halkaa badbaadiyay salaadiintii goobtaa joogtay iyo wixii kadibna waxa weeye ciidamadoodii iyo dadkoodii iyo eelkoodii ilaa mataqaan ilaa Buuhoodle ilaa Nugaal idaacadka ayaa soo gaaray marka waxa weeye anigu ma qabo anigu nin baan hayo ma qabo in nimanka halkaa jooga wax ina dhex mari karaan oo wax inaga dhaxayn karaan sababtu waxa weeye ninku hadduu diido jiritaankaaga noloshaada magacaaga hadduu arki waayo waxa weeye yuhuudiga raba jiritaankaaga iyo magacaaga iyo agtidaada kaa ka raba anigu taasaan aaminsanahay marka waxaad leedahay nimankan murashaxiinta laftigooda murashaxiinta iyo salaadiintooda iyo kuwa ay guddida ka dhigeen iyo kuwa waxa weeye ima kala sokeeyaan aniga sababtu waxa weeye 12 isim oo Khaatume State of Soomaaliya ayaa ilaankaas soo dhigoo yidhi waana idinka goonay waqtigiina waa ka ilaamiyey inaanan anagu keenay soo xulayn kadibna inta ma la maamushay baa markaasaa waxaa la keenay Faroole oo qoslaya oo leh mataqaanaa inkastaan xuskiisa jeclayn uu leeyahay geesiga tuuladii uu ku dhashay tuuladii uu u dhashayna waa la haystaa Axmed Karaash tuuladii ku dhashayna waa la qabsadaa Soomaaliya oo uu wareejiyay Soomaaliya taleexana wuxuu ku laayay maatadii iyo shacabkii iyo ummadii Khaatume ee gogashii Khaatume iyo qalabkii loogu talagalay raashuman uu bilaaqaystay marka waxa weeye arrintaasi waxa weeye waa arrin laba ilaa waana ka dhacday waxaana mar saddexaad iyo mar afraad shacabka reer Taleex ee u dhintay Khaatume State gogashay u dhigeen inaan u hambaliyeeyo naf iyo maal aan kala harin iyo cod midna aad baad mahadsantahay cabdisalaam waxaan soo gaarnay barnaamijka gabagabadiisii dowladda federaalka iyo Khaatume xagee kala maraysaa dowladda Khaatume iyo dowladda federaalka ah
runtii ma inaan ku hor dhaco ma rabo sababto waxa weye niman iga aqoon-yahansan oo aqoon-yahan ah oo soo jireena oo raggii dhidibada u taagay ee khaatume state taleex yaa ku dhex jira waxaadna og tahay ama etoobiya ha noqoto adiis ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqoto ama dhul badan ha noqoto inay weli gamcaha kula jiraan marka ka hor dhici maayo wixii ay maaragtay hawshaasi leedahay laakiin waxaan rajayn doonaa shir baan maqlayay baa mar labaad laga abaabulayaa oo dowladda kumeel gaar dowladda federaalka ah iyo nimanka anigu aan aqaano snm u aqaano laakiin somaliland sheegtay ay leeyihiin shir baan mar labaad noo bilaabanaya annagoo ah mid dowladeed laba dowladeed marka iyadana waana tan aan weli lagu dhawaaqin wasaaradii dowladda kumeel gaarka ah dowladda federaalka dowladda federaalka aan weli lagu dhawaaqin oo ra-iisul wasaare cusube uu ilaa hadda hawshiisa wada nin layaaho cabdiweli sheekh axmed marka waxaan rajayn doonaa wixii cabdiweli sheekh axmed ka soo baxa iyo waxa shirka hadda laleeyahay mar labaad turkiga lagu qabanaya inaanan ka hora dhicin baan jeclahay taa marka waxaan jeclahay ilaanka kan oo maadaama aad halkan waxaan jeclahay inaan kaga faa'iidaysto in yar oo aan kaga hadlayo garaad soo jireena oo layaa garaad saleebaan garaad maxamed garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud waxaan anigu qabaa inuu yahay garaadada soo jireenkaa qayb ka mid waxaana arkayay shacabka aan jeclahay ee reer taleex ama khaatumo iyagoo markaa cilaan ka soo saaray cimaabadna ku gubay anigu maadaama aan ka soo jeedo caylad soo jireena runtii ma raacsan ra'yigayga in arrintaa cimaamada halkaa lagu gubo garaadku haddii wax loo tiriyana waxay ahayd inuu isaga ku dhiso maadaama ay gurigii taleexa uu ku dhashay dhibaato ka dhacday inuu arrintaas ka dhiidhiyo oo maaragtay wixii hore dhacay ee loo tirinayay in uu maaragtay wax ka bedelo yaan aada u jecla anigoo ka faa'iidaysanaya garaadkana aan jeclayn in kaarhkiisa halkaa lagu gubo waxaan jeclahay waayo ma jecli nin soo jireena in maaragtay cimaamadiisii lagu gubo halkaa isaga oo gurigii u dhashay cayladuu u dhashay ay halkaa misna ay lagu gumaaday shalayto marka sidaa darteed waxaan jeclahay iyadana shacabka aan jeclahay ehelka ah ee dhibaatada loo geystay ee rag aqoon-yahana rag magarataa wax magarataa rag magaranay oo maaragtay wax badan sidaa darteed waxaan jeclahay in arrintaas balgaraadku mar labaad iyo mar saddexaad in arrintaa dib laysugu yimaado aada baad umahadsantahay cabdisalaan barnaamijka waan soo gabagabeyneynaa shacabka reer khaatumo siyaasi aqoon-yahan garaad maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa shacabka reer khaatumo state of soomaaliya ee adduunka dacaladiisa jooga marka hore waxaan u ducaynayaa in ilaahay khaatumadooda khayr ka dhigo marka saddexaad waxaan jeclahay aqoon-yahanka adduunyada ku kala nool in uu dib u soo eego goboladiisaan aada u jeclahay shirka ka dhici doona taleexna in aan aqoon-yahan salaadiin waxgarad nin garbood inuusan ka maqnaan baan aada u jeclahay sidaas aada baad umahadsan tahay cabdisalaan waa barnaamijkeenii xog waran aan mar kastaba kusoo qaadano dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee deegaanada reer khaatumo wiigii baan hal mar kasoo qaadano ama siyaasi ama ganacsade barnaamijkani markastana wuxuu inoo ahaanayaa barnaamij taxana oo wiigii hal mar idi kasoo qaadano barnaamijka waxaa idii waday ama idii daadihinaya anigoo ah xawil cagare qaybta farsamada iyo stuudiya waa cabdiraxmaan ilka case intaan barnaamij lamid a ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo kulanti dambe